madax dhaqameed iyo waxgarad kamida bulshada ku dhaqan bariga degmada Ceerigaabo ayaa qayladaan dheer ka muujiyay xaalufin ba'an oo lagu hayo deegaanka iyo kheyraadka dabiiciga ah taasoo ay ku eedeeyeen inuu qayb ka yahay isuduwaha wasaaradda horumarinta iyo deegaanka ee gobolka Sanaag Xuseen Talaahi waxaanay xukuumadda ka codsadeen si loo daba qabatayo deegaanka in laga bedelo mas'uulkaasi oo tan iyo xilligii madaxweyne Cigaal xil ka soo hayay waxaana hadaladoodii kamid ahaa sida tan waxaana Xafiif Caaqil Xuseen Xasan Cali Muuse waxaanu ka hadlaynaa halka ugu soo baxnay dhibaato ka taagan deegaanka oo ah isuduwaha deegaanka oo wasaaraddu ka wakiila oo dhibaato ka taagan tahay deegaanka muddo dheerna waa joog cidna tale kama weydiiyo dalkeena waa baaba'ay waxaana loo raraa xoolaha iyo dhibaato dalka loo gubaya waa Puntland weey dadkeena way iska hor keenay shaqadiisa wuxuu ka dhigtay uga baydhay inuu sameeyo dhibaato dadka uu iska hor keeno deetaana nabadgelyadii waa jabaysaa marka waxaanu leenahay dad xukuumaddu ama cid ha keento meesha ka shaqaysa oo ummadda la shan qaada ama dalka badbaadisa ha keento haddaanay nooca ay noqotona oo aanay dalka la badbaadinayna deena loo sheego markaa waxaan cambaaraynayaa isuduwaha dhirta iyo daaqa iyadoo ay tahay inuu dadka dhuxusha gubaya uu shuraako leeyahay una rarayo Puntland dhulkiina gubtay oo xaalufay cawska cayowga laga gurayo laaga ogadiisa gawaari baa qaada surug buleeyahay ummadihiina waa iska hor keenay waxaanu leenahay ninkaana la ka bedelo isuduwaha dhirta iyo daaqa gobolka Sanaag waxa magacaabay Allah u naxariisay marxuum Maxamed Ibrahim Cigaal ayaa magacaabay way isuduwaashu waqtigaas soo magacaabay ilaa riyaale ilaa tasiilaayo isuduwka waxaan aaminsanahay sababtu inay tahay raagsiyaha uu ku raagay wasaaradda inuu u qaatay meel uu isagu iska leeyahay annagoo xushmaynayna wasiirka annagoo xushmaynayna madaxweynaha annagoo jecel dadka horumarkiisa iyo ilaalintiisa waxaanu leenahay Xuseen waa ku raagay meesha adeer nin maanta ka fircoon oo ka ogaal roon uga waxtaroon hal loogu bedelo wasaaradda gobolka dadkii waxba ka dhaxkacay ninka isuduwaha ah dhuxusha iyo geedaha iyo daaqa iyo mid walba gacanta saaray oo dhulkii naga xaalufiyay oo hadiiba waa ku raray Puntland hadii oo dadku shuraaka kula yahay annagiina deegaanka yagii waa xaalufay abaarta laanu ka qaylinayno waxa loogu wacan xaalufka ninkaasi hadii keedalay gacanta naga saaray wixii aanu ku noolaan lahayn hana la ka bedelo isku duwaa dhirta iyo daaqa gobolka Sanaag baanu cambaarayna Xuseen Talaahi taasoo aanu ku aragnay waxyaabo muuqda sababtuna ay tahay dhirta iyo daaqa darti dhuxusha iyo manaafacaadka darteed isaga uu mas'uul ka yahay dawladdu waxaanu ogeysiinaynaa ilaahay maheer madaxweyne ilaa wasaaradda dhirta iyo daaqa in la ka bedelo xarumaha kala duwan ee wasaaradda gobolka Sanaag ayaa waxa ragaadiyay maamul xumo siloon oo bulshadu saluug baan ka muujinayso xilligani waxaana isuduwayaasha wasaaradda qaarkood ka arrimiya talada u soo joogeen tan iyo cahdigii Allah u naxariistay madaxweyne Cigaal taasoo xukuumadda madaxweyne Silaanyo ilaa hadda wax talaabo ka qaadin Maxamed Yuusuf Bakayle Royal TV Hargeysa.